dhahayo bilaala tigid ii diiday waxaasayt waxba kama jiraan aniga bilaala iyo familkayga iyo ummadda Soomaaliyeedba waxay ka wada dharagsan yihiin ninkaasayt tigid inaan u gooyay tigidkiisa u go'ana inuu tigid soo goostay uu soo baxay sababaha uu soo baxana waxa waaye dadkii shalay aan sariirta ka saarnaa waayay oo beenta iyo qubxiga iga daba waday oo aflagaadeynayay oo shalay soo basaasayay meesha aniga aan fadhiyo in lay dhibaateeyana raali ka ahaa ayaa ka dambeeyay ninkaanaytii inay tigid u gooyaan kana dhaadhiciyaan in uu dhinaciisa kale uu lacaga ka aruursado si uu hanti kale oo u helo xaqiiqada jirtaa waxay tahay anigu waa sax waan soo fariista waxaan iraahday hala isoo caawiyo waxaan u baahanahay caafimaad dibadda ah wixii la ii awood halleegu soo taakuleey waxaa jirtay leef aniga iyo walaalkay Ayub Karla soo wada fariisanay leefkaasna waxaa iga soo gaartay lacag 5,000 ah 5,000 markii laga gooyo serviceyada iyo waxyaabaha kale oo ka go'aayo waxaa si toos igu soo gaaraysay lacag 4,000 iyo jajab ah alxamdulillah 4,000 iyo jajabna waad ogtihiin dad isbitaal ku jira ilaahay kuma daraade u baahan service u baahan wax walba u baahan waa dareemi kartaan waxa kaga filnaan kara 4,000 iyo ama waxa kaga soo hari kara waa dareemi kartaan qofka aqli leh ayaa ogaan kara $4,000 inay waxba tareenin waxaa jirto linki aan sameeynay oo qof walba yiraahdo waa ku soo caawinaa meeshas wax ku dir aan dhahaynay oo GoFundMe la yiraahdo GoFundMe-gaasna lacagta soo gasha si live aad u arki kartaan profilkaygu saaran waad ku dhufa kartaan GoFundMe-gaas lacagta ku jirto waa lacag $1,000 iyo dhowr $100 waa $1,200 ku jirto haday ugu badato wax naga soo gaari laana waxay noqon lahayd $1,000 ilaa $900 naga soo gaari inta kalena canshuuro iyo waxay ku go'go ilahayd iyo taaj iyo waxyaabo noocaas ku go'go ilahayd cilada keentay in ninkan uu hadlana waxay ahayd lacag yarida oo anaga inaana waxba meesha aanan ka helin ayaa waxa keentay in fursad looga sameeyo oo la yiraahdo ninkan haduu waxba uusan helin adiga lacag sameyn kara ee waxaad sameysaa sheekadaas abuur ninkaniti horta xaqiiqada hadaan idin sheego cid wax u diido horta haba yaratay ma jirin anigana kama soo tagin asiga iga soo tagay oo anoo gurigeyga joogo oo wada joogno wada sheekeysanayno waxba naga haleysnayn ee dhalinyaradu nala wada joogan ayuu baasaboorkiisa qaatay wuuna soo baxay xataa dhowr mar waxaan isku dayay inaan raadiyo waan daba kacay waan wacay